This is option. السلام عليكم soo dhawaada mar kale ninkan inoo muuqdo waxa lagu magacaabaa Abshin waxa uu ka soo jeeda dalka Iran waa ninka ugu gaaban adduunka dhererkiisu waa 0.61 meters oo kaliya mitir barkii ayuu wax yar dheer yahay ninkan markaad arkayso waxaad u malaynaysaa inuu ciyaar yahay laakiin da'da saxda ah ee uu jira waa 23 sano inkastoo markaad sidaa u aragtay ninkan aad u malaynaysa inaan wax dhibaato ku jirin oo iska faraxsan yahay haddana sidaasay tahay hawlaha yaryar ee nolol maalmeedka qofku ku xidhan yahay aad bay ugu adag yihiin ninkan Giggling so much. Cruising around the house. intii uu soo noolaa ninkan marar badan ayaa la takooray oo lagu takooray dhererkiisa iskuulla loo diiday fursado shaqo soo maray ayaa laga horjoogsaday haddaba muuqaalkan ayaynu maanta ku eegi doonaa ninkan sidee ayuu ku nool yahay dunida dadka ku hareeraysan dhammaantood dhererkiisa kusoo labalaamayaan 3 jeer marka laga hadlayo inuu qof weyn yahay imika noloshuna uma fududa ninkan marka la isku eegayo dhererkiisa iyo da'diisa haddaba ugu horreyn intaynan muuqaalka sii gudagelin haddii markii ugu horreysay aadna daawanaysa ay tahay fadlan subscribe noo saar muuqaalkana like saara haddaba ninkan youtuberka ee soo booqanaya ninkan adduunka ugu gaaban si uu u soo gaadho magaalada uu degan yahay oo ku taalla waqooyiga dalka Iran wuxuu 2 cisho oo dhan soo dhex mariyay oo uu ku soo dhex jiray Kurdistaanta dalka Iran oo ka kooban intaas soo magaalo laakiin 2 cisho kadib ayuu soo gaadhay magaaladan Bukaan lagu magacaabo oo ka tirsan Kurdistaanta Iran waliba magaaladan ma jiraan wax dalxiisayaal oo hore u soo booqday ninkan gaaban tuulada uu degan yahay magaaladan Bukaan ayaa 20 daqiiqo looga sii soconaya waana tuulo yar sida aynu markan u jeednana waxay magaaladan uga sii iibinayaan hadiyado iyo alaabo ay u geynayaan marka ay soo booqanayaan ninkan gaaban haddaba waxa uu ka soo jeedaa dadka Kurdida oo ah dadka ugu badan ee adduunka aan dawlad midaysan lahayn oo 40 milyan oo qof weeye laakiin intaas dawladada ay ku kala jiraan haddaba ninka youtuberka ninka la socda exactly ma garanayn meesha uu ka xigo halka uu degan yahay ninkan sida darteed dadka ay sii weydiinayaan waana loo tilmaamay jihada ay u dhaqaaqayaan haddaba tuulada yar laftirkeeda markay soo galaan kuwa yarre wadada maraya iyo dadkan kale ay sii weydiinayaan waana loo sheegayaa guriga markay sidaa u gaadhaanna ninka gaaban aabihi ayaaba ka hor imanaya oo soo dhaweynaya Okay, a little bit of a chaotic entrance to find his house, but I think we found it. We forgot his dad. Salam. ninkii yara gaabnaana sidaynu halkan ka arkayna aabihi ayaaba soo qaadaya ninkiina waa loo keenayaa kadibna uu salaamaya ninkan yara gaabana si fiican ayuu ninkan soo dhaweynayaa isagoona yara warwaraysanaya waxaanu ka odhanayaa magaaladan aad degantay way qurux badan tahay He says that Kurdistan is beautiful, but unfortunately the facilities and equipment kadibna gudaha ay gelayaan maadaama ninka yar uu caan yar yahay gurigooda uu iska fiican yahay sidaan gudaha uga jeedno uu qurux badan yahay haddaba sidoo kale marka la yara weydiiyo waxyaaba uu jeclaan lahaa wuxuu sheegayaa ninka yar intan leeg inuu jeclaan lahaa inuu guursado laakiin aabihii uu taa ka soo horjeedo oo aan u malaynayn inay macquul tahay waxaanu aabihii u sheegay inuu marka hore guri isaga uu leeyahay uu samaysto kadibna uu guursan karo maadaama guriga nimanka ay ku jiraan uu yar yahay sidaan ku arki karno gudaha guriga waa isku wada muuqataa meesha cuntada lagu karinayo baaskiilada yar imanka uu korayna waxa uu sameeyey nin mootooyinka sameeya oo tuulada degan ninka yar uu ka ducaystayba siduu ugu faraxsayay baaskiilada markuu korsan yahay And he's off. Giggling so much. Cruising around the house. kadib ninka yar waxa ka odhanaya dibadda inoo saara wuxuu rabaa in dibadda loo baxo He waits for me to get up. See that? He doesn't move till I get up. Okay, let's go. halka dibadda ay wada fadhiisanayaan shaax ayaana loo keenayaa shaaxaas ay cabayaan daba ninkan yari waxa uu haystaa 2 Guinness World Record oo duwi lagu siiyey ta koobaad waxa weeye inuu yahay ninka ugu gaaban dadka adduunka oo dhan Measured at 2 feet 1 inches. sidoo kale mid kaloo labaad ayuu haystaa Guinness World Recordka kale labaad uu haystaa waxa weeye inuu yahay qofka ugu gacmaha yaryar leh dadka adduunka oo dhan Salam. Khubi. Khuba. marka dabcan loo eegaya da'diisa ninkan youtuberka markuu aabihii iyo wiilka yarba weydiiyo ka warrama sidee ayaad dareemaysaan maadaama aad kurdi tihiin waxay labadooda u sheegayaan inay aad ugu faraxsan yihiin inay kasoo jeedaan dadka kurdida haddaba sidoo kale reerkani way soo dhaweynayaan ninkan iyo ninkan kale soo booqday labadoodaba waxaanay u sheegayaan in iyaga la joogaan oo wax walba u baahan yihiin iyagoo ay siinayaan inkastoo raggan youtuberada ay sheegayaan inay cunto iyo waxaa ka doonayaan magaalada ay wax soo iibiyaan laakiin odayga wiilkan dhalay uu ka diidaya waxaan odhanaya wax walba halkan ayaa laga helayaa ee halkanna la fadhiya si fiican ayayna u soo dhaweynayaan dhanka kale ninka youtuberka markuu ku dhahda adduunka maxaad la wadaagaysaa fariinta u diraysaa maxay tahay gaar ahaan dadka Mareykanka wuxuu sheegay inuu jeclaan lahaa inuu Mareykanka tago sidoo kale dadka Mareykanka uu jecel yahay
intaa kadib ninkan youtuberka waxaa raacaya wiilkii yaraa waxaanu soo kala tusayaa dadka jaarka ah iyo magaalada oo dhammaanba laga wada garanayo gaadhigiisa ayaanu markan ku soo qaaday sidaynu arkayno Afshin's dad's driving and we're rolling around town. He keeps giggling. Alright, we just made it to the... waxayna u yimaadeen kuwa yarar kubadda ciyaaraya oo uu Afshin markan isku dayay inuu la ciyaaro kubaddana uu laadi garanaya inkastoo itaalkiisu uu gabaya laakiin si fiican buu yaqaanaa ninkan Maraykanka ninka kale uu kula kaftamaya wiilkan yar baa adiga kubadda ka badiya maadaama Maraykanka wax kubadda aan aqoon isagoo kubaddi laabay inuu dhacayaa sidaan arkayno laakiin markuu kaco wuxuu samaynayaa celebrationkii Ronaldo ama siduu dabaaldegay suu samaynayaa Chris Ronaldo, you know that. haddaba wiilkan yar aabihii markay weydiiyaan markii uu dhashay waxa uu sheegayaa markii uu dhashay gebigiisu inuu xabad tufaaxa leekaa oo ilaa laga gaadhay 17 jir markuu noqonayay muu korin laakiin wuxuu bilaabay markii uu 17 jir gaadhay inuu dhererkiisu 0.6 uu soo gaadhay sidoo kalena 6 kilogram uu noqday xagga miisaanka dhanka kale aabihii waxa uu sheegayaa inay la soo dhibaatoodeen oo sanadka inta badan ay ku jiri jireen dhakhtar uun markii uu yaraa laga yaabo inay sanadka 10 bilood dhakhtar ku jireen cid caawisa maadaama tuulada iyo magaalooyinka ka fogaayeen ay waayeen sidaa darteed koriinkiisa aad bay loo dhibaatoodeen haddaba sidoo kale sababta uu sidan u noqday markay weydiiyeen ama waxaa loogu sheegay xanuunkiisa oo dabcan ah meesha ay wax ka qaldameen sida la filayo inay tahay dhibaato geneetiga oo xagga hiddaha ah maadaama aabihii iyo hooyadii ay ahaayeen dad isku dhow oo qaraabo ah waxay ahaayeen dad ilmaadeera sidaa darteed ayay dhibaatadan u timid oo wiilkan yar oo sidan ugu dhashay haddaba markay weydiiyaan sidoo kale aabihii dhibaatooyinka uu la soo kulmay ee wiilkan yar uu kala soo kulmay waxa uu sheegayaa inuu waayay iskuulka qabtaba oo iskuullada badankooda ay soo diideen laakiin iminka iskuulkan ayuu dhigtaa oo macallimiinta halkan degani tuuladina way ogolaadeen inay wax u dhigaan laakiin si gooni ayaa wax lagu dhigaa oo macallimada ofiska ayay geysaa markay wax u dhigayso sidaan ku arki karna sawirkan iminkana waxa uu dhameeyey galaaskii labaad oo galaaskii saddexaad ayuu imika gelayaa sidoo kale wiilkan yar marka laga tago dhibaatooyinkiisa sida dumarka iminka gurigan ku jira ay sheegayaan talent kale ayuu leeyahay oo xagga xifdinta ayuu ku fiican yahay telefoonada dadka iyo waxaa loo sheega markaaba uu qaybayaa dadka tuuladan yar deganna ninkan way ka wada helaan oo way wada jecel yihiin maxamed ayaana lagu magacaabaaba marka tuulada la joogo They call him Muhammad. They really do call him Muhammad. sidaynu markan arkaynana dukaankan ayay geeyeen oo lagu soo iibinayo wuxuu doonayo xabxabkan ayaa lagu soo iibinayaa oo ninkan la yaaban yahay xabxabka noocana ninka youtuberka We're gonna bring this one to your house. sidoo kale wiilkan yar waxa uu soo qaadanayaa waxyaaba uu baahayay sharaabkan ayaa loo soo iibinayaa gaadhigan baa la dul saaray sidaynu arkayna ciyaalkii xaafadoo dhan baa kusoo ururay oo dhammaantood way wada taageeraan maadaama uu yahay wiil yaroo iska farxaana How are you? I'm fine. Thank you. You know Afshin? Yes, I know. Tell me about him. He's just small, but he's so smart. He's a singer and he plays football. He's a singer? Yes, How long do you know him? How many years? for 2 years. 2 years. Yes. iyadoo marka dambe raggan ay go'aansanayaan inay geeyaan magaaladii u dhoweyd ee buukaan ay ka yimaadeen oo 20 daqiiqan u jirta halkaas ayaana la geenayaa si ay jawiga ugu soo bedelaan oo magaalo kale ay u soo tusaan aad baan ugu farxayaa runtii iyagoo markan uga xiray sidaan u jeedno Raysalaan oo sida wejigiisa laga arkayo uu aad ugu faraxsan yahay inkastoo raggan ay la yaabayaanba inuu mar kastaba iska faraxsan yahay wiilkan yari oo uu iska qoslayo maadaama uu sheegay in dadka oo dhan ay jecel yihiin isaga marka la weydiiyey maxaad la faraxsan tahay markay Raysalaan ka keenaanna magaalada ay la soo dhex marayaan qof walba arkaana uu salaamaya amba uu dhunkanayaa haddaba markay halkan yar fadhiistaan ay weydiiyaan wiilkan yar waxyaabaha ugu daran maadaama aad u yar yahay waxa ka mid ah inaanu shaqaysan karin oo aanu shaqo heli karin inaanu sida dadka caadiga u dhaqmi karin laakiin sidoo kale waxyaabaha wanaagsan ee uu ku haysto inuu yar yahayna ay ka mid tahay iminka aad loo yaqaano oo Iiraan oo dhan badanka laga wada yaqaano laakiin uu si jeclaan lahayn adduunka oo dhan laga wada yaqaano muuqaalkana aan filaya in laga wada bartay adduunka oo dhan sidoo kale faa'iidooyinka uu ka haystan waxa ka mid ah qof walba oo arkaa ama uu qaaday ama uu dhunkanaya shaqooyinka uu jeclaan lahaa markay weydiiyaanna wuxuu sheegayaa inuu kubadda cagta aad u jecel yahay sidoo kale filimada uu jecel yahay oo sidaa darteed ama uu jeclaan lahaa haddii aanu sidan u yarayn inuu ciyaariyaan noqon lahaa
ama sidoo kale actor inkastoo imikadanba wax jili karo sidoo kalena engineer uu jeclaan lahaa dabcan maskaxdiisu aad bay wanaagsan tahay oo waa ka wax walba xifdiya haddaba marka sida dhaarkana ninkan ilmaha yar sita ee 10 bilood jira ayaa meeshii soo istaagay sidoo kale wiilkan yarna aabihii ayaa qaadaya sidaan arkayna ilmaha yar kale ayaaba ka weyn 10 bilood jira halka ninkan yar isagu yahay 23 jir sidoo kale markana sidaan arkayna muraayadan ayaa loo iibinayaa oo labadan waraaqood ee lacagta loo siisanayo oo isku 1 milyan 500,000 weeye oo riyaalka dalka Iran ninkii wax ka iibinayna wuxuu celinayaa 500,000 riyaal maadaama ninkan yar caan yahay magaalada oo dhan laga wada garanayo Maxamed ayaa looga yaqaanaa magaalada Thank you. Bye, man. sidoo kale markan kalena waxa la soo gelinayaa ama isaguba uu keenayaa meesha ugu jecel yahay kabaabka laga cuno hudheelka oo magaaladan ku yaala cuntada ayaan cunayaa quraardan yar sharaabka loo soo dhigay isagaba way ka dheertay markay cuntada dhameystaan sidoo kale waxa la geenayaa dawaarka halkaas oo lagu tali doono maryo isaga leeg oo lagu qiyaasay inta la qiyaasayna sidoo dharkan halka yar fadhiisiin ninka yar baa la kaftamay meesha jooga wuxuu ka oranayaa manadarkii waxbay ka duubanayaan isagoo ninkan kale ninka youtuberka la socda uu kula kaftamayo inay guur u qaban qaabinayaan wajigiisana sideen uga jeedo uu farxaya marka lagu dhaado insha Allah wad gursan doontaa inuu gursado aad u doonaya sida wajigiisa laga arki karayo marka guuriga xal soo hadal qaado sidoo farxayo marka meesha ka soo baxana maadaama markasta la sido ninka youtuberka abi wuxuu weydiinaya balka hor socod hor maan socon karin waxaan uu sheegay marka xoogay socdo inuu daalayo laakiin in la qaadaaba fudud dadka maadaama aad u fudud yahay qof walba iska qaadaya gabiisu 6 kiilo sidoo kale abi wuxuu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay maadaama wiilkan yar dartiisa lagu bartay oo qof walba uu yaqaano wiilkan yar yaabihi haddaba maalintan markay magaaladii buukaan dhex marmaraan ugu dambeyn way daalayaan waxayna dib ugu noqonayaan meesha ay ka yimaadeen ee gurigooda ahayd halkaasoo cunto badanna loogu karin doono sidoo kale wiilkan yar ee abshin lagu magacaabo ama ninkan yar ee abshin uu halkaa hees ugu qaadi doono maadaamuu yahay sidoo kale fanaan oo hore loogu sheegay inuu heesi karo ninkan yar waa nin yar cajiib wax walba isku dayey oo fariida heestaba markan u qaadayna waa hees jacayla sidaan arkayno sidoo kale markana waa salaadii abshina marka sidaan arkayna abi ayuu la weysiisanaya masaajidka ay galayaan salaada ay halka ku tukanayaan alxamdulillaahi rabbil aalamiin kurdida iyagu sidaan ognahay waa sunni oo laba mid aha shiicada kale ee degan Iran alxamdulillaahi rabbil aalamiin zuliman qabidan assalaamu alaykum wa rahmatullah haddaba salaada markay dhamaato sidaan arkana imaamka oo la wareysanayo ninkan wareysanayo waxa uu sheegay wiilka yar Maxamed lagu magacaabo inuu yahay wiil aad u fiican oo dhammaanba dadka tuulada ku nool meel walba ay joogaan ama magaaladu ay aad u jecel yihiin muuqaalkan aan ka arkaynay sidii loo wada salsalaamayay ee loo dhunkanayay qof walbana wuu jeclaa sidoo kale ninkan markuu masaajidka soo galo ninkii imaamka wuxuu sheegay in laftarkiisa uu ixtiraam muujiyay oo salaadaan ku hadal ugu dambeyntina masaajidka markay ka soo baxaan ninkii kale hagayay ee la socday ninka youtuberka isaga laftarkiisa ay weydiinaya bal ka waran waxaan u sheegayaa in Iran 16 ilaa 17 sano ugu dambeeyay uu dhex marmarayay oo magaalada badankeeda amaba guud ahaanba Iran uu ku wada safray laakiin aanu arag wali cid lamida marka la eegayo dhanka dhaqanka wanaagsan soo dhaweynta salaanta dad lamida dadka degan Kurdistaanta Iran oo ah dadka muslimiinta ee Kurdida meel walba ay tagaan fiidiyogan iyo fiidiyogii ka horeeyba ay soo dhaweynayaan oo ay salaamayaan oo ay mar walba isku dayayaan inay wax fiican la wadaagaan It's true. Good night. After the mosque, the sun is already set. Taba markay masaajidka ka soo baxaan waxay imanayaan halka cashada lagu karniyay oo gurigii ay ku soo noqonayaan cuntada ay si karisay wiilkan yar hooyadiina way cunayaan iyagoo sidoo kale moobilkan laga tusayo ninkan gabadha kale iyaduna adduunka ugu gaaban oo Joti lagu magacaabo oo ninkan isaga laftarkiisu wareystay youtuberka sawir ayaan ka qaadayaa waxaan u sheegayaa inuu u ballamin doono oo ay sarkayaan sidoo kalena isku guurin doono ugu dambeyn cuntadii faraha badneed ee loo kariyey reerkani aad bay u soo dhaweeyeen waxaana cuntaaba loo kariyey ayay meesha ku cunayaan iyadoo sidoo kale Maxamedna la weydiinay waddankeebaad jeclaan lahayd ama sidoo kale cuntadeebaad ugu jeceshahay wuxuu odhanaya kabaabka waddankaad ugu jeceshahay inaad tagta marka la weydiiyana wuxuu sheegay wadamo badan Maraykanka Qatar Saudi Arabia Imaaraadka adduunka oo dhan inaan tago waan jeclaan lahaa buu odhanayaa
haddaba markay sidaa cuntada u dhammeeyaan ugu dambeyn ninkan way si macasalaameynayaan subaxii muuqaalkan halkaas ayuu kusoo gabagaboobayaa haddaba saaxiibayaal haddaad muuqaalkan ka hesheen fadlan like-ta noo saara haddaad nagu cusub tahayna subscribe-ta noo saara aad baad mahadsantiin